halkan maanta waxaan ka bilownay anagoo ah bisha casay boorame odaal aan ugu qodayno dadkii nuglaaya abaartii ay waxyeello ka soo gaadhay ee xoolihii kaga dhammaadeen dadkaasoo tiradoodu ay dhan tahay 240 qoys oo aan ugu qodayno min 4 saaca oo tuulooyinka ay ka mid yihiin 2 district oo Dila iyo Boorama oo xagga tuulooyinka ay ka mid yihiin Baaldheere Walaalgo iyo Odax xagga Dilaadna waa Dila hareerahayga ah iyo Duudweyne oo degmada Dila ka tirsan waxaan ugu qodaynaa 120 iyo 120 labada degmo kala ah waxa kale oo inta aan oo dheeraa oo barbar wadnay 180 qoys oo aanu siinaynay lacag 3 bilood waxay loo raashinstaan oo $100 oo gobolka oo dhan ah oo halkan 5 tuulo oo iyaguna labada distriga iyo laba tuulo oo hoos yimaada district Saylac oo Jari iyo Fagaadana marka maanta waa maalintii afraad ee qodaalku noo socdo tuulooyinkaas si fiican bayna u gudmaysaa waxaan aad ugu rajaynahay inuu dadka baahidooda dadka aadka u nugul wax ka qaban doonto bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala halkan waxaanu uga mahad jeedinaynaa oo uga mahadnaqaynaa haddii aanu nahay beesha Baaldheere in bisha casi ay noo qodayso saacado 40 qoys oo beesha Baaldheere ah من 4 ساعات على قوي 4 ساعات أي نوقدش تضرب قف وأما أقول أما غيد تال درن نه أي نو أي عاويين لعق من $100 صدق بلودنا أي سقون سوق أي نوق بلن قادين سدا وحنقوم هذا قينا بيش عس واحترك أي نوق يلتي قعنقبة أي نوق يلتي abaaraha na soo gaaray dadka reermiga soo gaaray sida uga gacan qabteen ama ay mucaawino ay ugu taakuleeyeen bisha cas 100% waanu mahadnaqaynaa intaasi waxaan raacsanaynaa waxa nagu socda dhul dilaac carraguur baa nagu socda doox uu naga go'ay doox uu naga go'an yahay balligii la noo qoday khatar buu ku jiraa beerihii aan qodanay qaramadii khatar bay ku jiraan waxaan bisha cas ka codsanaynaa inay intaana la naga taakuleeyo oo si degdeg ah la noogu gaaro wax looga qabto ayaanu taana ka codsanaynaa sida awgeed waanu mahadnaqaynaa bisha cas 100% ilaa wax ka qabashadeedii hore iyo maantaba waanu u mahadnaqaynaa 100% assalaamu calaykum waraxmatullaahi raxiin allahumma salli ala maxamed halkan maanta waxaan ka cadeynaynaa hay'adda bisha cas oo noo qodaysa saacada ay nagu soo deeqday annaga oo dadka degan Baaldheere degmada hoos degta ee magaalo cad taasoo ah oo nagu soo deeqeen dadka baahan nagu soo deeqeen ka bacdi waxaan ugu hambalyeynaa aad iyo aad horta marka hore Ilaahay baa mahad iska leh mar labaad waxaan u mahadnaqnaa hay'adda bisha cas oo nagu soo deeqday saacado nagu soo deeqday marka iyo lacagtaas ay ku soo deeqday 7 qof oo gaar ah oo dadka iska dhibaataysan ah oo siiyeen min $100 marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa marka xigta waxa sheeganaa sida wadaga hore sheegay dhulgo uu nagu jiraa de nimco walo timaadaba waxay leedahay nusqaan bay leedahay marka nimcada un baa keentay dhulgo uu sheegay odaguna marka waxaan leenahay horta sida aan arkano dawladda Soomaaliland horta malaanaba soo gaadhaan leenahay hay'adda bisha cas waxaan ahay hay'adda bisha cas aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa dawladda Soomaaliland waan maqalnaa in Soomaaliland jirto inay nagu tiriyaan Itoobiya iyo waan kala garan laanahay marka waxaan ku jirnaa meelaha horta aad u dhibaataysan hay'ad dawladda Soomaaliland la sheegayaba ayna soo gaadhin kaliya waxaan anagu aragnaa hay'adda bisha cas oo kaliya markastana iyada wax qabadna la soo horjoogta xagga biyaha haday noqoto waxa ay noo samaysay baraag oo ka cabna imigana waxa ay noo qodaysaa saacadaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa hay'adaha kale ee gobolka yimaada waxtar kuma hayno inay gawaadhi cadcad meelaha duuyada marmarto waan aragnaa balse waxba kuma hayno dad xarxaragoonaya wayna dhaafaan waxaan halkan ku soo aad iyo aad ugu mahadnaqnaa anigoo ku soo koobay hadalkayga hay'adda bisha cas uma aragnaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxa aan faranayna inay nooga soo jawaabta ayaan jecelnahay
aad iyo aad baan anigu mahadnaqnaa inamada nala halgamaya sida cali oo kale boqolkiiba boqol baan aad ugu hambalyeynaa waa ninka mar kastana ag jooga ee mar kastana ag taagan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inamada bisha cas ka shaqeeyana waayo dhibaatooyinkayga ay inta badan ka jawaabaan oo noo taakuleen ogyihiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa markaas awgeed waxaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum hay'adda bisha casna aad baan ugu hambalyeynaa assalaamu calaykum waxyaabaha waxqabadkeeda noo qabtay maaragtay ururkan uu noo qabtay iyo hay-adahan maaragtay hoos tago waxay soo bilaabantay xaaladdu markii ay ugu adkayd ee abaarihii biyo la'aanta ayay soo bilaabantay waxaana loo keenay biyayow badan oo ilaa 12 boodood oo biyo ah kadibna way ka soo waaday waxqabadyada maartay adduunka nooga iman jira way badnaayeen laakiin kuwa ugu fiican kuwan bay haayeen waxa weeji markii dambe 12 qoys oo kuwa ugu liita danyarta ah ayaa waxqabad loo sameeyo lacag la siiyay 3 bilood yaa lacag la siiyay bil way qaateen 2 biloodna way u hadhay waxa ka soo waaday way ka dambeysay 200 oo saacadood oo iyadana naloo qoday kuwaasoo EU iyo GRC iyo bisha cas oo fulinaysay ay maartay waxaas bay noo qabteen waana degmada Dilaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan maanta ka bilaabaynaa qodaal aan u sameeynay anagoo bisha cas qodaal loo sameeyay dad nugul oo degmada Dilaa 120 qoys iyo 30 qoys oo aanu siinay lacag muddo 3 bilood socon doonta marshuucan oo iska kaashadeen ay bixinayaan lacagta midowga Yurub ayna soo mareen lacagta casay Jarmalka bisha casay gobolka Awdal ay fulin doonto waxaan maanta halkan u qodaynaa 120 qoys oo degmada Dilaa min 4 saacadood iyo 30 qoys oo siin doono muddo 3 bilood lacag $100 oo ah dadkii abaaraha ku waxyeeloobay marshuucan markaa wuxuu ka shaqeyn doonaa kale ka jiray iguna tuulooyin kale oo iyaguna hoos yimaado degmada Boorama iyo degmada Seylac imigana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Dilaa Ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahadle ilaaha maanta halkan aan arkayna ee barwaaqada ay suu keenay degmadani waad ogeedeen oo abaarihii ka dhacay 3 sanadood oo hore roob kuma diin ilaahay mahadii maanta wadinka arkay barwaaqada aan ku jirno shacbiga degmadu wuxuu helay abaartii kadib raashin badan baa la helay waxa ka dambeeyay roob aad u badan waxa nooga dambeeyay saacadihii hay'aduhu ay bixinayeen oo ay ka mid tahay bisha cas oo iyagana saacado badan oo ilaa 6,000 oo saacadood degmada la keenay alxamdulillah bisha cas haddii aan u soo noqdo bisha cas waxyaabo badan bay degmadani ka taageertaa waxaan oran karaa waa hay'adda kaliya ee sida dhabta uga hawlgasho degmada waayo caafimaadkeeda gacanta ku haysa MCH-ka hadday dhisma tahay hadday shaqaale tahay hadday dawo tahay intaba iyada gacanta ku haysa waxa kale gacanta ku haysa ambulanskii degmada iyada ka bixisa shidaalka iyo wixii oo u baahday agaba intaan kuma koobnay bisha cas abaarihii bay ka qayb gashay oo biyo dhaamin bay samaysay waxa kale maanta aanu joognaa iyadoo bixinaysa saacadihii degmada waxay ka bixinaysaa 120 qoys oo min 4 saacadood ay u qodayso oo runtii aan aad iyo aad ugu hambalyeynayno waxa kale oo ay idna samaysay 30 qof oo min $100 bisha la siinayo 3 bilood gudahood iyo iyaduna ay bixisay intaaba waan kaynaa bisha cas aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida fiican iyo sida quruxda badan la degmada iyo dadkeega u taakuleynasana aad baan ugu mahadnaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aan joognaa waa tuulada Walaalgo oo ku taala degmada Boorame waxaan ka bilaabaynaa maanta oo taariikhdu tahay 22 bishii sanaad 2016 beero qodaal aan u qodayno 44 qoys oo kamid ah kuwa ugu nugul Walaalgo waan u qodaynaa min 4 saaco wax kale oo iyadna barbar socota 10 qoys oo muddo 3 bilood siin doona iyadana lacag dhan $100 bilba $100 waxa kale oo iyadna aan markii u horeysay waqtiga aan siin jiray Walaalgo nagu jirtay mashruucan biyo dhaamin aan u sameynay Walaalgo
taasoo mashruucan markaa iska kaashanayaan qaybta cas ee Jarmalka midowga Yurub oo lacagta bixinaya iyo anagoo bisha cas ee Boorama oo mashruuc fulin doona hadii la ka dhigo mashruucu wuxuu ka kooban yahay markaa qayb nolosha dadkii abaartu ay waxyeeleysay aadka u nuglaa ee xoolihii ka dhamaadeen wax looga tarayo oo xaqii beeraha beer loo qodayo xaqa kale kuwa ugu sii liitaan aanu siin doono lacagta yar ee aan hore u soo sheegay waxay ka mid tahay markaa walaalgood tuulooyin gobolka Awdal 7 tuulo oo aan mashruucaas ka fulin doono oo gobolka Awdal ka tirsan oo laba ay 3 yihiin degmada Boorame labana degmada Dila laba kalena ay yihiin degmada Saylac oo ka mid tahay Jir iyo Fiqaadan iyo Dila iyo Duudweyna iyo walaalgo iyo Odax iyo Baaldheer oo degmada Boorame ka tirsan walaal magaca naga bedel marka waxaan doonaynaa waxa markaa hadii ilaahay ka dhigo wixii kale markaa wax qabada ayaan marka hore walaalgu waxa tuulo aan la shaqeyno oo mashruuc hore aan ku wadnay imigana mashruuca taakuleynta abaaraha na uu ka sii socon doonaa assalaamu calaykum walaalgu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هالكني بشعص مدة آد بين ولا شقيس تو كصوب بالوضي يدعمت سفيعا يدعمت هو قيد قادتي حتى أنا هاي كتمت توبون قويس وسطح بلود سيس عندنا هاي جوجا بلعبين $100 أفريا فرتن قويس وبير قادتها sida walaalgo mashruucan bisha cas hay'adan waa hay'ad nala soo dirtay sanadkan kullay waxay noo qabatay barkada way ribeerin baan ugu sameysay markii horeysay baari jalxadii talaajadii biyaha sifeeyaashina way gaarsiisay beesha qayb ka mid ah bisha cas waxay noo soo kordhisay biyo dhaamin markii horeysay bilowday waxay kale lacag siisay 15 qoys oo danyara oo haween u badnaa imikana muddo dhaweyd waxaa la qoray 44 qoys oo saacado beer loo qodayo way ag socdaan 10 qoys oo lacagnimo oo $100 3 bilood baan wadana ilaahayn 10 way siiyeen 44 beerood loo qodayo qoys loo qodayna maanta labada cagaf ay ku qodayna ugu wareejiyeen wala ku maaseen boqolka boqol oo ku soo dhaweynayna